ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la qaybihiisa kala duwan ama danab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxa loogu talagalay hawlgalkan qaadistiisa waxaan u sameynay wax badan oo goboldhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisina marka loo sameeyo dadku iska soo dhax doortaan ciidankii booliska ay la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ay amniga kala shaqeyn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee banaanka ka joogi lahaa amniga kor ahayn lahaa ilaan kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u sameeyso booliska u deyso nabad sugidda u sameeyso ciidamadii ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aad buskut siiso maamulkii aad gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirkii inuu kuu sheego aabbahay qori baa u yaallo meeshaas aaday waxaas sameynaya laakiin hadday noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo sameyn waayo oo amnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilaan way is yaqaanaan shalay bay xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adigu warkii aad qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diidayso taasaa markaa waxay tahay in la diyaariyo intaadan weerarka qaadin inaad ciidankii qaban lahaa amniga sidii loo hayn lahaa maamulka sidii maamulku inuu noqdo maamul dadku kalsoon yihiin oo aan dibadda looga keenin oo aan lahayn qof baa lanoo keenay tuulada la qabto iyada dhexdooda markii dib loo baadho in iyada dhexdeeda looga magacaabo inta loo dhisayo maamul dhaba heerka saddexaad ee dowladnimo oo kawnsiladii iyo golayaashii deegaankaana sidaa lagu bilaabo taasaan u diyaargarownay marar badan baan ka hadlayn inaan weerar qaadno laakiin annaga lafdhabarta shabaabku waa gobolkan sababtoo saldhigoodu waa gobolkan meesha ay u soo gabadaan u soo cararaan waa halkan meeshay shaqada ka galayaan waa halkan wax waliba halkan ma dhaafayo waxaan rajaynayaa saaxiibadana gobolada dhexe iyo reer Hiiraan iyo culays ku dhacayaay markaan hadda bilowno in culays badan ka soo degi doono lana isugu iman doono oo halkaan ay noqoto meesha lagu soo afjari doono haddii Ilaahay dhaho qoborahooda ugu badan gobolkaanu noqon doona aad baad u mahadsantihiin waan idin mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku ognahay waa hawlgal waxaan isku ognahay waa tallaabaan qaadno waxaan isku ognahay waa dadka inoo yeedhaya waxbarashada la caafimaad kala gargaar kala nolosha la wax walba ku silacsan ee inoo yeedhaya inaan u tagno sababtoo qofku gurigiisa iyo beertiisa meel uga baxa ma leh labadiina nolol kuma haysto waxay sugayaan waa inaga la inoo yeedhaya maanta wiilasha halkaan hortii dhisho waxaa ka mid ah kuwa badan oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood shabaabku ay gacanta ku hayaan oo ka soo cararay oo iyaga maalin walba la ciqaabayo la leeyahay wiilkiinii hebel ahaa keena laakiin diidayn aabbo ama iskala soo tagay laakiin anugu kuwaas sidan kula noolaan maayo in badan oo ka mid ah saa maanta ku joogta taasaan isku ognahay aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh